waxaana wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Maracadda Show. qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah amarka degdega ee la duldhigay kooxda TPLF ee ka dagaalamaya waqooyiga dalkaasi Itoobiya, wadada tareen ee isku xirtay Itoobiya iyo Jabuuti oo dib loo furay, macluumaad ku saabsan cidda ka qayb qaadatay dib u furidda wadadaasi, gantaalada iyo madaafiicda lagu weeraray deegaano dhowr oo ka tirsan waqooyiga dalka Itoobiya, gawaarida la gubay iyo deegaanada la kala qabsaday. macluumaadii ugu dambeeyay ayaan kula wadaagi doonaa. qaybaha kalena waxaan ku arki doonaa Turkiga oo ka calooday qorshe uu soo jeediyay Mareykanka iyo macluumaadii ugu dambeeyay dabka ka kacay dalkan Turkiga. mar kale ku soo dhawow Maracadda Show. fadlan like saar muuqaalka haddii aad ka heshay macluumaadyadan halkan ku soo gudbino, qaybta hoose aragtidaada ku reeb. waxaan ku hormari doonaa macluumaadka ku saabsan Itoobiya. deegaanka Raayo ayaa waxay sheegayaan dagaal xoogan inuu halkaasi ku dhex maray Amxaarada iyo kooxda TPLF, gaar ahaan ciidanka dawladda federaalka ee Itoobiya iyo kuwa TPLF. dhinacyada TPLF ayaa waxay sheegteen guulo la taaban kara inay ka gaareen dagaalkii ugu dambeeyay ee shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaanka iyo deegaano kale oo dhowr ah. waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen ciidankii ugu badnaa ee dawladda. waxaa kaloo ay sheegeen inay gubeen gaadiid ka mid ah kuwa ay adeegsadaan ciidamada ammaanka ee dawladda Itoobiya. dawladda Itoobiya ma jirto wax war ay ka soo saartay dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay waqooyiga dalka, gaar ahaan kuwa ay ciidamada ammaanka ee isgarabsanaya ay ku qaadeen fariisimaha ay lahaayeen jabhadda TPLF. gobolka Wolla ayaa lagu warramaya inuu yahay gobolka dagaalada ugu adag ee iminka ay ka dhacayaan, kuwaasoo u dhexeeya dhinacyada dagaalamaya. dhinaca kalena jabhadda TPLF ayaa waxay weerar xoogan ay ku qaatay magaalada lagu magacaabo Waldhiya, halkaasoo madaafiic xoogan ay ku weerareen maalintii shalay. jabhadda TPLF waxay sheegtay in ku dhawaad 4 ka mid ah gaadiidka dagaalku ay adeegsadaan ciidamada ammaanka ee Itoobiya in halkaasi ay ku gubeen. waxa ay sheegeen mid ka mid ah inuu ahaa kuwa laga soo ridi jiray qoriga loo yaqaan BM-ka oo lagu xasuuqi jiray dadka deegaanka sida ay sheegeen. TPLF waxay si aaday kaga carootay kadib markii duqeymaha diyaaradaha droniska iyo kuwa ciidamada militariga ay ku dileen askartii ugu badnaa oo jabhadda ka tirsan, kuwaas oo la sheegay fariisimo ciidamadooda ay ku sugnaayeen in laga waayo wax ka badbaada. tani markii diyaaradaha dagaalka ay ku biireen duqeymaha ay la eeganayaan ciidanka TPLF, naqshadii dagaalka ayaa isbedeshay. TPLF waxay u muuqataa in iminka ay bilowday dagaalada sida gurilaha oo kale oo ku dhifo oo ka dhaqaaqa oo ay ku qaadaysa fariisimo ay ciidamada ammaanka adeegsanayaan. waxaa kaloo TPLF ay u muuqanaysaa inay calool jilaac ka helayso wadamada reer galbeedka, kuwaasoo iminka soo jeedinaya in miiska wadahadalka la isugu yimaado. Faransiiska iyo Mareykanka ayaa qayb ka ah kuwa soo jeediyey inay wada hadlaan dhinacyada dagaalamaya. laakiin dhinaca kale TPLF iminka amar adag ayaa la siiyey kadib markii qoraal uu ka soo baxay dawladda Mareykanka, taasi oo ku aadan in TPLF ay si degdeg ah ku baneeyaan 2 ka mid ah gobolada ay xoog ay ku haystaan iyo kuwa dagaalada ay ka dhacayaanba. madaxa hay'adda USAID ee dalka Mareykanka Samantha Power ayaa waxay soo jeedisay hadal ku aadan in kooxda TPLF sida ugu dhaqsiyaha badan ee isaga baxda 2 gobol oo xuduud ahaan ay wadaagaan sida la sheegay deegaanada dhacdhanka waqooyi ee dalka Itoobiya, waxaana TPLF lagu amray inay halkaasi isaga baxaan si gargaar loo gaarsiiyo dadka u baahan. TPLF ayaa waxaa lagu warramayaa inay caqabad ay ku noqdeen gargaar gaarsiintii deegaano dhaca waqooyiga dalkaasi bilihii ugu dambeeyay, kadib markii boqolaal iyo kumanaan kun oo dad ah ay soo wajahday xaalad macluuna sida lagu sheegay macluumaadka ka soo baxay qaramada midoobay. dawladda Mareykanka, gaar ahaan madaxa ugu sarreeya hay'adda USAID Samantha Power, waxay sheegtay in ciidamada dagaalamaya labada dhinacba looga baahan yahay inay goobta isaga baxaan. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa wuxuu ciidan u diray deegaanada dhaca gobolada waqooyi ee dalka Itoobiya bishii November ee sanadkii la soo dhaafay, xilligaas oo ay si weyn ula dagaalamayeen TPLF. waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku eegi doonaa, balse markaan aan eegno wadada tareen ee isku xirta Itoobiya iyo Jabuuti.
wadada muhiimka ee tareen ee isku xirta labada dowladood ee Itoobiya iyo Jabuuti ayaa dib loo furay waxaana loo ogolaaday inay dadka ay adeegsan karaan tan iyo wixii ka dambeeyay caqabadihii ka dhacay gobolka Soomaali galbeed ee dalkaasi Itoobiya ay xireen wadadaasi taas oo la sheegay dad banaanbaxyo dhigayay inay gabi ahaanba ay jiraan wadada tareen ee isku xirta Itoobiya iyo sidoo kale Jabuuti. dadka banaanbaxa dhigaya ee gobolka Soomaaliyeed ee dalka Itoobiya ayaa wadadaasi xiray kadib markii sida la sheegay maleeshiyaadka canfarta ay bartilmaameedsadeen dadka rayidka ah kadib markii muran dhanka dhulka uu soo kala dhex galay dhinacyada dagaalamaya waxaana ay sababeen maleeshiyaadka canfarta inay dilaan in ka badan 400 oo ruux oo dad rayid ahaa. ugu dambeyntii xogaha iyo macluumaadka aan helayna waxay sheegayaan in iminka lagu guuleystay in dib loo furo wadada tareen ee isku xirta labada dowladood. wadadaas ayaa muhiim ah waxaana ay ku taallaa gobolka ay xuduud ahaan ay wadaagaan Jabuuti iyo Itoobiya. sababtoo ah wadadaasi waxaa mara ganacsiga ugu badan ee labada dowladood u dhaxeeya waana halka Itoobiya ay adeegsato marka laga yimaado dekadaha ee dalka Jabuuti oo ay wax badan ay kala soo degto. macluumaadyada ka soo kordha xogaheena kale ayaan ku ogaan doonaa balse markaan aan eegno Turkiga. xukuumadda dalkani Turkiga ayaa waxay ka carootay qorshe Mareykanka uu ku doonayo in uu dalal saddexaad sida Turkiga oo kale uu dib u dejin ugu sameeyo kumanaan ruux Afghaanistaaniyiin kuwaas oo la sheegay inay halis ugu jiraan in kooxda Taliban ay u beegsatay xiriirkii ay la lahaayeen Mareykanka dartiis. wax ka yar bil ka hor inta aanu Mareykanka uu soo gabagabeyn dagaalkii muddada dheeraa ee dalkaasi ayaa waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka waxa ay isniintii ay ku dhawaaqday barnaamijka ay ku qaadanayso qaxooti loogu talagalay dadka u dhashay dalka Afghanistan. barnaamijkan ayaa caawinaya tarjumaanada la shaqeeyay ciidamadii Mareykanka Afghaanistaaniyiinta ku lugta lahaa mashruucyada uu maalgelinaya Mareykanka iyo kuwa la shaqeeya ururada aan dawliga lahayn iyo warbaahinta Mareykanka. wuxuu barnaamijka u qeexayaa in dadka la dejinayo dal saddexaad oo gobolka ku yaala muddo sanad ah ilaa laga diyaarinayo warqadaha sharciga ah oo ay Mareykanka ku tagayaan. hase yeeshee Turkiga oo hadda ay ku nool yihiin 4 milyan oo qaxooti oo badankood Siiriyaan ayaa waxay sheegeen in aanan lagala tashan arrintaas. waa wax aanan la aqbali kareynin in dhibaato xal lagu raadiyo oo xal looga dhigo dalkeena iyada oo aan ogolaansho laga haysan dadkeena iyo dalkeena. waxaa sidaas lagu yiri bayaan ka soo baxay maalintii shalay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Turkiga waxay ku sheegtay in mid kamid ah dalalka ugu macquulsan ee dib u dejin sameey kara iyada oo sidoo kale qeexday Pakistan. ha yeeshee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani Turkiga ayaa sheegtay in qorshaha Mareykanka uu hogaamin karo xasarad muhaajiriin ah oo weyn taas oo ka dhacda gobolka iyadoo intaasi ay ku dartay inaysan awood u lahayn inay la tacaasho qalalaasa muhaajiriin oo cusub oo aad u daneynaya in dal saddexaad la geeyo. iyada oo la filayo ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ay ka baxaan dalka Afghanistan. Turkiga ayaa ka cabsi qaba qulqul cusub oo qaxooti ah. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in saraakiisha Turkiga ay wada hadallo heer sare oo ku saabsan arrintan ay kala leeyihiin dhigooda dalka Afghanistan. qaybaha ugu dambeeya haddii aan eegnana 23 sano ka hor bishani oo kale laba weerar oo kooxa argagixiso lagu tilmaamay inay fuliyeen ayaa mar qura waxay ka dhaceen magaalooyinka Nairobi iyo Dar es Salaam oo dalalka Kenya iyo Tanzania ah. haddaba maxaa laga garanayaa dadkii abaabulay qaraxyadaasi? weeraradan ayaa waxay dhaceen bishii Agoosto sanadkii 1998 waxay gabi ahaanba ay bedeleen xaaladii amniga ee gobolka Geeska Afrika waxaana la sheegay in lagu guda galay dagaalka ka dhanka waxay ugu yareen kooxaha argagixisada. waxaana la sheegay 7 bishii Agoosto sanadkii 1998 in magaalooyinka Nairobi iyo Dar es Salaam ay gilgileen qaraxyo ay soo abaabuleen dad aad uga soo shaqeeyay kuwaas oo lala egtay safaaradaha Mareykanka oo ku lahaa labada dowladood. khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur ayaa ka dhashay iyadoo Kenya iyo Tanzania uu u furmay bog cusub. weli waxaa muuqata astaamaha weeraradaasi iyo garaafadii dadkii waxyeelada badan ay ka soo gaartay. weerarka Kenya waxaa ku dhintay 213 ruux in ka badan 4500 oo qof ayaa ku dhaawacmay. Tanzania 11 ruux ayaa dhintay 85 kalena way dhaawacmeen. ugu dambeyntii dalkani Turkiga weli wuxuu la daala dhacayaa gubashada kaymo dhowr ah oo ku yaala dhanka koonfureed ee dalka Turkiga. kaymaha gubanaya ayaa ku sii faafaya deegaano dhowr ah waxaana arrinta sii saacidaysa dabaylo xoogan oo dalka ka jira iyo kulaylo ba'an oo laga dareemay xitaa magaalada Ankara ee caasimadda dalkani Turkiga. kulaylaha ayaana saameynaya dadka deegaanka waxay ka qayb qaadanayaan in dabka uu sii faafo. dowladana dadaal badan ayay bixinaysaa. in ka badan 50 diyaaradaha helicopterska ayaa la kiciyay si ay ugu yaraan biyo ugu rusheeyaan goobaha dabka oo ka kacay. falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee marcadasho waa nageynta macluumaadkan kan xigay intaan ku kulmi doona nabadgelyo. barnaamijyo cusub ayaan goordhow kula wadaagi doonaa insha Allah. ka mid noqo saaxiibadeena nagu xiran.